ujeedada waxa weeye dhismo masaajid la yiraahdo magaciisa masjidkii Sheekh Yuusuf Direed oo Huursho ku yaala masaajidka dhismihiisa weeye ujeedadu waxaan dadka khayrka jecel iyo samafalka jecel oo Ilaahay ridihiisa dalbahaya ka codsanaynaa inay masaajidka ka soo qayb galaan iyagoo ku dhaqmahaya xadiiskii rasuulku yiri qaala sallallahu alayhi wa sallam man bana masjidan bana Allahu lahu mithlahu fil jannah wa hadith sahiha marka dadkan waxaan ka codsanaynaa si wanaagsan oo qalbi furan ayagoo Ilaahay dartiis ku bixinaya inay masaajidka ka soo qayb galaan anigu ninkan hadlayaa waa macallin Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahim lambarka lagu soo dirayana waa shaashada gadaalkayga ka muuqata lambarada saaran anigoo ah Cabdiwali Sheekh Yuusuf dadweynaha muslimka waxaan ka codsanaynaa masjidka Sheekh Yuusuf Direed oo Huursho degmada Huursho ku yaal in la ka caawiyo oo la kala qayb qaato dhismihiisa asagoo xirtii qaadi waayay oo kulayl iyo yaraanba keenay dadweynaha islaamka waxaan ka codsanaynaa in la kala qayb qaato oo la ka caawiyo oo la dhiso yaan codsanaynaa dadweynaha ka codsanaynaa waa u ducaynaynaa qof walbana waa yaqaanaa masaajidka qaybtu ka qaato inama ya'muru masaajid Allah man aamana billahi wal yawmil aakhir weeye ilaahay qofkii rumeeyay waa qofkii masaajidka soo amiro qofkii wax ka diro oo kii sibira ku bixiyana ilaahay agtiisa wuxuu geystay weeye saasaan codsanaynaa hana la dhiso masaajidka inta islaamka meel alla meel u joogaba intaasaan codsanaynaa halkan waxaan ka salaamaynaa dadka muxsiniinta oo muuminiinta oo khayrka jecel dhamaantood meel ay joogaan badabad iyo daakhil waxaan meesha u nimid sidii raggii iga horeeyay sheegayba guddigii masjidka aan nahay ragga iyaga hadlahaya waxa weeye masaajidkii ku yaalay magaalada Huursho oo masjidka maca Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahim masjid Sheekh Yuusuf Direed ku magacaawna awalna sheekhi bineeyay raad Allah ka noqday hadda waqtigan maanta jooga qaababka masjidyashu u dhisan yihiin iyo sayihiin uu ka bedelan yahay masjid horu ahaa uu yaraaday uu gaaban yahay kulayl iyo yaraanba waa keenay xataa biyaha waa soo deynayaayo masjid horo qadiimiyuhu noqday oo dayac badan ka muuqdo inaan masjidka ballaarino oo hagaajinaan ku tashanay waxaan muslimiinta iyo muuminiinta ka codsanaynaa in masjidka laga soo qayb galo dhismihiisa